Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Fiidnimo wanaagsan kusoo dhawaada xilqadda sideedaad ee kalka labaad ee taxanaheena kabasho. Xilqadan waxaan u bixiyaa Soomaali ahaan heeda dawr. Af Ingiriisna waxaan isiri labada ereyga Soomaaliga heeda dawr wuxuu qaadi karaa labada erey self abandonment, self iyo abandonment. Self waa naftii. Allahumma salli calaa Muhammad. Waxa waa la gareeya haddaad maqasho abandonment haddaad maqasho waa shayga marka laga tago ee la dayaco valuegiisi iyo qiimihiisii iyo wuxuu wax ku ahaay ahaanshihiisii uu waayo. Ka waran haddii waxaa la dayacay ee la tuuray ee laga tegay ee la danayn waayey ay naftaada tahay, waxaad galaysaa xaalad heeda daw ah, xaalad aad isla adahay, xaalad aad isheli la'dahay, xaalad safar cala shimaalah. Horta waxaan ka cudur daaranayaa intaanan sharaxa u gudagelin in aan 2 wiig oo dhan idinka maqnaa howlaha iska badnaa. Laba shayba way ugu weynaayeen baan u malaynayaa maqnaanshahayga. Kow, Allahumma salli calaa sayidina Muhammade gabadhaydii ayd ogeydeene wixii ducaayadii kasoo dhacday September qalinka gashay micnihii waxaan ku yidhi istiri waad ka qashay xoqadii waad ka raysatay alif halkii unbay ka bilaabeen oo igu soo noqdeen wixii ducaa wixii tahliila wixii sadaqaad iga bixsanaysaan wixii haddii bahaydiid mahayo aydun tala iyo tusaale waalidkiiyo macuudiyo ayeeyooyinka awooyinka iyo dadka dir Soomaaliga yaqaana aad iga keenaysaan intaba marti baan idinka ahay. Arrintaas waa arrin jirta. Arrinta labaadeen idinkaga maqnaa 2 wiig ee lasoo dhaafay waxa weeyaan waa la xaday. Anigoo weyn oo intaa leeg yaa la xaday, waa la dhacay, waa la scam gareeyay, naag baa i xaday tuuga ah. Arrintaas sheekadaas 100 ah iyadoo dhammaystiranna waan idinka soo sheekeyn doonaa iyadoo taxliilkeeda iyo tafsiilkeedaba leh. Intaa markaan ka imaado sharaxa ayaynu u gelaynaa self abandonment ama heeda dawga aynu caawa xilqadan aynu u bixinay waxa ay tahay. Weligaa adiga oo raba inaad maya tira oo xubnahaagii jirkaagii ogaalkaagii aqoontaadii fahamkaagii iyo laxdada iyo sakanka aad taagan tahay raba gudahaaga inaad maya tiraaho carabku ma kaa xaday haa oo haa ma tiri. Weligaa waxaan aanad qaadi karayn dhaqaalahaan iyo nafsadahaan iyo haleelahaan iyo Allahumma salli calaa sayidina Muhammad taagahaan ma xambaaratay oo ma qaadatay oo ma qabatay oo ma gashay oo adoo dhex fadhiyo ma is aragtay. Weligaa ma dareentay noloshaada dhexdeeda ka muuqan weyday ma isaga muuqan weyday invisible ma dareentay noloshaada dhexdeeda. Nolosheena xidhiidhan leenahay mihaamiyo hawla ayna sugayntaa waxbayna ku fooganahay inu qabanaynaa wax waliba meel bay nagaga beegan yihiin. Ka waran haddaad isweydaba aad arki weydo aad isu muuqan weydo haddaad macnihii aad 0 ama 0 ama asal ma doorshe dareen noocaasoo kale ah aad dareento ka waran inaadan qaraaraadkaaga iyo go'aamadaada iyo tallaabooyinkaad qaadayso iyo waxa aad qabanayso ayna ahayn wax Allahumma salli calaa sayidina Muhammad aligned la ah ama ku toosan ama qabadsan waxaad rabtid si dhaba aad u rabtid. Okay, hadalkayga waxaan malaynayaa uu adkaaday. Goormay dhacdaa ama xaaladda heeda dawga uu insaanku galaa yaan isweydiinayna suu sharax u fududaado. Self abandonmentka goormaynu samaynaa. Self abandonmentku waa xaalad dhacda marka aad xilli kastoo joogto sakin kasta daqiiqad kasta ilbiriqsi kastoo aad joogto aad dismiss garayso ama aad tixgelin weydo baahiyahaaga iyo dareemadaada iyo qiyamkaaga iyo waxyaabahaad qiimaysa xilliga iyo daqiiqada iyo sakankaa kuu muhiimka ah oo aad ka doorbido ama aad ku foganaato raaligelinta raaxa dareensiinta dadyowga kale adigoo ka cararaya khilaaf adigoo ka cararaya inay dadkaasi ku xaroodaan adigoo ka cararaya raalli ahaanshiyo la'aantooda adoo waxaasoo dhan ka cararaya yaad waxaad ganafka ku dhufanaysaa ama aad dismiss garaynaysaa baahiyahaagii iyo dareemahaagii iyo doonitaanadaadii iyo qiyamkaagii iyo danahaagii
waxyaabihii ku sugayoo dhan ayaad dhinac ka dhaafi dabeetana cid kaluun baad u raran tahay cid kaluun baad raali gelinaysaa cid kaluun baad xidiyaha ugu taagan tahay cagahaaguba dhulka ma gaadhaan xaaladaasaa waxaa la yidhaahaa self abandonment ama xaala min alhedadaw yaad gashay waad islaadahay noloshaada adigu kama dhex muuqatid danahaaga kama dhex muuqdaan waxaad rabto kama dhex fulinaysid wax cid kala rabto ayaad ka fulinaysaa cid kalaa ka dhex muuqata cid kalaa go'aamadaada iskale cid kalaa waqtigaaga iskale cid kale ayaad u raran tahay marka waxaad samaysay wax la yidhaaho self abandonment oo ku geliya xaala min alhedadaw isla'aan marka codka gudahaaga aad iska indhatirtid oo iska dhegatirtid ood ignoor garaysid si aad cid kale aqbalkeeda u heshid cid kale jacaylkeeda aad u heshid cid kale aad waxa weeyaan raali ahaanshiheeda u heshid heedadowga ama self abandonmentka waxaa kasoo horjeeda wax la yidhaaho self connection insaanka iyo naftiisu inay isku xidhiidhaan gudahaaga iyo dabadaadu ficilkaad dabadda ka fulinaysid iyo codka gudahaagu inay xidhiidhaan oo connection qof waxa weeyaan allahuma salli calaa sayidina muxamede isagu isku urursanaad noqotid yaa kasoo horjeeda marka waxaad dareemayso iyo waxaad doonayso iyo waxa aad gudahaaga codkaa ku jiraahi uu qaabilsan yahay ama uu qabadsiisan yahay ama allahuma salli calaa sayidina muxamede ay macnaha isku mid yihiin waxa dabadaada ka dhacaya yaa waxaa la yidhaahaa waxaad ku jirtaa xaalad self connection ah qof isku xidhiirsan baad tahay qof aan kala daadsanayn baad tahay qof aan heedadow ku jirin baad tahay qof aan isla'ayn baad tahay qof waxa weeyaan allahuma salli calaa muxamed si dhab ah nolol dhab ah u nool yaa tahay wuxuu doonaya garanaya wuxuu diidaya garanaya wuxuu haada odhanaya garanaya wuxuu mayada odhanaya garanaya qof si dhab ah u nool oo isaga ah yaa tahay self connection baad leedahay tusaale ahaan meel baad ka shaqaysaa waxaad shaqaysaa 9 ilaa 5 sida caadiga kontragaaga ku qoran shaqadaadii yaad soo dhamaysatay 5 ay tahay qofkii booskaagabaa ku yimi wuxuu ku yidhi heblaayo ama hebelow shaqo kale intuu miiska kuu soo saaray shaqooyinkana qabo oo ku dhaqso adigii waxaa laga yaabaa inaad hooyo 2 bilood ka hor oo kale umushayaa tahay ilmo yar gurigaad kaga timi caruur yar oo kale guriga ay kuu joogaan waalidka ayaad xanaanaysa hadday doonaan guriga ay kuu joogaan ballan kale oo 6 ama 7 ama 8 baad leedahay shir kalaad leedahay hawlo kalaa ku sugaya shopping baa ku sugaya inaad gurigii u adeegto danahaagu ma aha un 9 to 5 kan waxa weeyaan wax ka baxsan iyo adduunye ka baxsan baad leedahay laakiin waxaasoo dhan waad ka dhagamartay daalkii waad ka dhagamartay hawshaadii inaad dhamaysatay waajibaadkaagii maanta iyo wixii kuu qorshaysnaa inaad wada tigarayso waad ka dagatirtay markiiba waxaad habtiri ood ku buudood haya tiri shaqadii halkan laguu soo dhigay iyadoo sharciyan iyo caqliyan iyo waqti ahaan iyo haleel ahaan intaba aanad karaynin inaad dhammayso oo beri u dhigan karayso yaa waxaad ka doorbiday inaad waxaasoo danood leedahay aad ganafka ku dhufato waxaad ka doorbiday ama aad doorbiday ood raacday inaad raali geliso qofkan markaa kaa sarreeya ee culayskan ku dul saaray waxaad samaysay markaa self abandonment nafsadaadii waxay doonaysay iyo codkaaga iyo wixii macquulka ahaa realistic ah baad ka tagtay oo waxaad ka durugtay wixii naftaada iyo dhabahaashiyahaaga iyo danahaaga iyo badqabkaaga iyo hawlahaaga kuu dhaweyn lahaa oo waxaad u dhegdhigtay wax kaloo kaa fogeynaya no saying waxani haddii hawlahani hawla adiga ku sugaya ay ahaayeen oo ay adiga ku dayacnaayeen oo adigu aad qaban weyday ama kontragaaga ay ku jirto inaad overtime shaqayn kartid amaba lagu pay garaynayo lacag lagugu siinayo malihi taas waa different story waa sheeko kale warkaasi laakiin ayadoo aanay dantaada ku jirin oo waqtigaaga ku jirin oo haleelkaaga ku jirin oo energy iyo tamartaada haysaa ku jirin oo waxyaabaha ku sugayaahi ay kaa dayacmayaan oo shaqadani ay berri u dhigmi karayso yaa waxaad doorbiday yaanu boosku kaa xanaaqin heblaayo waa qof waxa weeyaan cajaayiba xafiiska ayadaa loogu jecel yahay inaad lagu yidhaahaad ka doorbiday
shaqadii baad 5tii ku habtiri 10kii habeennimaad ka soo baxday ilmi yaraa hadda doonoo kaa gaajooday carruurtii kale inay kaa dayacmaan howlaha kale inay kaa dayacmaan adeega guriga inuu kaa maqan yahay waalidkaagii howlahay kaa sugayaan ballantii iyo miitinkaad lahayd oo aad waxweeyaan misgaraysay all of that waxaan aad samaysay waxweeyaan self abandonment naftaadii baad ka tagtay waad heeda dawday xaqiiqadaadii baad ka fogaatay yaad ka fogaatay haddaynu tusaale xidhiidhkaaynu leenahay baniaadamka kale ayna leenahayna soo qaadano waxaa laga yaabaa inaad ku jirto xidhiidh nafsiyan nafsad ahaan iyo caqli ahaan iyo dareen ahaan iyo diin ahaan iyo dhaqaal ahaan intaba ku dhibaya oo sun ah ama toxic ah xidhiidhkaasaad ku sii dhegan tahay maalin walba ixtiraam daraad qaadataa maalin walba caybaad qaadataa maalin walba cagajugleyn baad qaadataa maalin walba khiyaanaad qaadataa maalin walba dayacbaad qaadataa maalin walba waxweeyaan inuu shilinkii kusoo galay sharfadii kusoo gashay qofkani kaa qaado waxweeyaan uu ku murxiyo ayaad qaadataa aflagaadaad qaadataa sometimes waxaa laga yaabaa qofka inuu kuu gacan taago jirkaaga waxyaalaad qaadataa waxaasoo dhan waxaad u qaadanaysaa kabaqisaad ka baqayso inaad keliya haato naftaada keli lama noqon karaysid maskaxdaadii amaankaagiyo naftaadii waxay ku sheegtay dumar kale ma jiraan adduunka rag kale ma jiraan adduunka xiriirkana iska dayana kusii dheganow kusii faraadayg right badqabkaagii iyo caafimaadkaagii nafsadeed iyo kii jidheed iyo kii diimeed iyo kii dhaqaale iyo wixii oo dhan waxaad ka doorbiday in hebel gabadh buu qabaa layraa yaad ka doorbid macnaha suurad guud oo guri meel ka dhisan cush baad ka doorbid heblaayo ninkeedii waa la joogaa weliba wada joogaa yaad ka doorbid waxaad samaysay wax la yidhaaho self abandonment waxaad isgelisay naftaadaad gelisay xaalad heeda dawga naftaadii dulmi yaad gelisay waxaa lagu jiraa shir baa shirkadda ku jirtaay oo kale shirkii afkaaraa la isweydaarsanaya qof waxaa tahay aqli fayoobaa tahay qof creativea tahay oo afkaar waxweeyaan u adeegaysa tiimkanaad la shirayso u adeegaysa shirkadda u adeegaysa ajandaheeda horumar fara badan maaragtay lagu helayay horu socod shaqadan fududaynaysa yaa kaa gooxaya kugu jira laga yaabaa inta miiska fadhidaba inaad ka cilmi badan tahay inaad ka khibrad badan tahay inaad waxyaaba fara badan uga faradhudhuban tahay inaad ka allahuma salli calaa sayidina maxamed ka xirfad badan tahay laakiin afkuunbaad saa isugu qabsataa job waxaad diidaysaa inaad dadka ka dhex muuqato waxbaa kugu yidhi oo haddaad fikrad kaloo creative la timaado dadka kale maaragtay dad doonaan kaa xumaanaya hebel baa hadalkaaga wanaagsan ama heblaaya kaaga wanaagsan iyagoo ha hadlaan just be good you know afkaaga iska hays saasay ku wanaagsan jidhku fariimuu inoo soo diraya habeenkiiyo maalinta inaan daalannahay iyo inaynu gaajoonayno iyo inay hurdadu inagu yar tahay iyo inaan xaalad beenaw taho waxweeye shaqadii intaan iska badanay aanu waxaweeyaan daal naf la nahay yuu noo soo diraya waxaasoo dhan ka hor haddaad ignore garayso oo maalintii aad hal mar wax cuntid ood iska dhaadhaysid oo wallaahi maba haleelayo intaa shaqaan ku mashquulsanahay intaa waddadan saaranahay intaa gaari baan wadaayo intaa maaragtay aad cuntadii ay ahayd inaad ku noolaatid oo jirkaaga aad ku quudisid aad misgaraysid inaad shaqaysid oo sida dameerka aad isku rartid adigoo salaha la yidhaha qofkan waa qof waxweeye kaale arag ahoo allahuma salli calaa sayidina maxamed dee hawlkara shirkadda isagaa madaxa ku sidaa qofka ugu dambeeya soo xidha weeyaan ka ugu horeeya fura weeyaan waxaa laga yaaba gabagaaga timay kaa daateen hurda la-aan inay kugu dhacday skiinkaagii inuu qalalan yahay dibnahaagii inay googo-aan allahuma salli calaa sayidina adoo dhan aad raf tahay you don't remember the last time tad meeltaa u fadhiisatay aad bal cunto bismillahi raxmaan raxiim intaad tiraa si wanaagsan cuntay aad baad yaroo aad ku raxaysanayso aad qaadato si fiican u maydhatay cadar yaroo udgoono aad jaashay aad ku shubtay aad nasatay hurdo kugu filan oo 8 saacadood 7 saacadood wixii aad karaysid goortii ugu dambaysaa si fiican u digriday goortii maba xasuusatidba kas waxaad tahay qof on the go ah habeenmaan laguun baad ku taagantid adoo taagan sariirta marka soo kacdo ma haleeshid xilli aad tiraahid waxaa la yidhaahay
الحمد لله الذي أحيانا من بعد ما أماتنا وإليه النشور ma kartid adoo taagan baad arkaysaa goor aad wax weeyaan aad boxerskaaga xidhatay goor aad surwaalkii xidhatay goor aad shaarkii garankii goor aad goor aad timihii goor aad cadayd goor aad guriga ka baxday adigoo shaqadii hor taagan unbaad is aragtay yaad is arkaysaa maskaxdaadii baa saa u waayar garays waxaanaad samaynaysaa wax weeyaan self abandonment xaalad haydadawiya yaad isku ridaysaa waxaana waxaad daba ordaysaa waa ha lagu ammaano waa maaragtay waxaad u gaajaysan tahay in lagu ammaano in cid kale kaa raali noqoto inaad maaragtay quudkaagu waa cid kale raali ahaanshiheeda soo naftaadiiba dayacdood ka durugtay ood ilowday oonad iska warhaynin cid kalaad u raran tahay hadalkan leeyahay maaha kama soo horjeedin insaanku dadaalo inuu punctual noqdo on time noqdo inuu maaragtay waqtigiisa ilaaliyo mu'min qawiya noqdo no laakiin ala xisaab naftaada markay meesha ka baxdo saasaan ka hadlaynaa self abandonmentkan ka hadlaynaa ama xaaladda haydadowgan ka hadlaynaa waa taas inaad habeen iyo maalin ereyga keliya afkaa kasoo baxaa haa hebelow shir baan reerku halkan ku leeyahay waxa weeyaan odayaashii baa isu imanayaa maqaaxida heblaayo oo hadda doona 2 saacadood ku jirtaa la isugu imanayaa aawa 7 weyn halkan lagaa helaa 5 o'clock baad kasoo baxdo mabaad helin xilli aad gurigaaga ku noqoto saaka 9 baad gurigaa kasoo baxday xilli aad gurigaa ku noqoto ma haleelayso ma karaysid inaad dib u soo cadayato ma halaysid dharka inaad kasoo bedesho ma haleelaysid reerkaaga inaad eegtid waxay u baahan yihiin inaad u soo adeegtid iyo inay maaragtay ma halaysid allahuma salli calaa sayidina maxamed danahaagii kale ma jirto waxaad halkaasaad ka safraysaa 2 saacadood baad soconaysaa tegaysaa markaasaa waxaad leedahay halagu ammaano odayaasha isir waa ninkaas waa nin cajaayib aho shirarka reerka kama maqnaado habeen iyo maalin uu taagan yahay oo kale arag markaasaad halkiibaad adigoo hedadawayo laga yaabo maanta inaanad qadaynin laga yaabo inaad wax weeyaan sidaad kursigaad ku fadhiday maradaadii jacketkaad kala soo kacday baad meeshii ku tagtay markaasaa waxaa laga yaabaa inaad meeshii fadhiisatid markaasaa waxaa lagu yidhi 7 ilaa 10 buu sheekii socday markaasaa hebel baa soo galay mid kalaa soo galay waar hebel masaad mid walba salaantay waxaa la wixii jeebkaa ku jiray oo dhan baad bixisay 12 mise 1 habeenimo ayaad adigoo dandaana kasoo kacdeen waxaa la yidhaha maqaaxidii gurigaagood kusoo socota beritoole waxaad leedahay 9 o'clock ama 8 ama 7 shaqo leedahay maxaa soo faa'iiday maxaad khasaartay maxaad faa'iidaysa kwash hadhow marka soo noqota sirkaambiso niyo maxaa kugu watay urooda cudur daaran kara lahayd maya iska daa laakiin waa koodayaasha ku amaanay kugu ni kaabil oo cajiib weeyaan asagoo kale lama argo habeeniyo maalin shirarkaas u jooga soo dhaqaalahaan waa soo burburtay nafsiyan waa soo burburtay waqtigaaga kaa soo lumay wax badanoo maanta hadhow aad qabsan lahayd fiidka ayaa wax weeyaan meeshii ka baxay caruurtaada waqti la qaadan lahayd danahaagii haddaad doonto shopping baad u baahnay inaad nasataad u baahnay inaad jimka sii martaad u baahnay waxaasoo dhan meeshay ka baxeen calaa xisaab ha kaa raali noqdaan odayaashaasoo ammaan ka gaarsiiyaan dadkii kale yaad waxaa u samaysay soo xaala minal haydadowbaad naftaadii gelisay taa macnaheedu maaha inuu qofku shir tegi karin inuu maaragtay ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo tolkiisa uuna ka warhayn karayn laakiin calaa xisaab waynaad miisaan ay saaran yihiin waynaad haayo mayadaadu maaragtay ay isbarbar socdaan oo doorasho xor ah aad leedahay oo markaad haa leedahay aad haleel haa ku taraahaa oo karitaan maaragtay dhaqaale iyo awood aad haa ku taraahaa oo waqti aad u haysaa oo wax kaloo kaa dayaamaya aanay jirin oo beritoole aanan maaragtay xarashku lagugu lahaalaynin oo caawurdadaada aanay ka dhinaanaynin oo connectionkii familkaaga aanay ka dhinaanaynin right allahuma salli calaa sayidina maxamed xayndaabkaaga waxaa ku jira tusaale ahaan dad yow isku sheegay inay asxaabtaada yihiin dadka kugu dhow yihiin dadkaasoo dhan waxaad u tahay dhegta dhegaysata hebel baa kula soo hadlay heblaaya kula soo hadashay waxaana igu dhacay kanay ka dhacday saanay noqotay ninkii waana kii kala tagnay islaantii baan isku dhacsanahay dhaqaalaha saligu leeyal kanay ka dhacday bababababa dadkii oo dhani baa taroomadoodiiba kugu shubeen waad dhegaysataa hadday dhaqaale u baahan yihin dhaqaalahoodaad ka bixisaa hadday kowda habeenimo u baahan yihiin in meel laga soo qaado gaarigaad siraadaayo oo tagtaa haddii allahuma salli calaa sayidina maxamede yani wax kastoo baahiyahooda inaad dabooshid baad yaad waxweeyaan naftaada ku dhiirigelisaa ama aad samaysa laa qadar allah beriba wax kale wax kugu dhacayn shaqadii baa dadoon lagaa eriyey kontraagii baa kaa dhamaaday dayac baa jira xoogaa maaragtay dhaqaale ahaan ku haystaa nafsiyan baanad murtaax u ahayn telefoon baad wacaysaa hebel ama heblaayo qofkii saaxiibkaa iyo diinta rodhan waxaan usoo sameynaysay
أول سلام عليكم markaad tiraahdo war mashquul baan ahay niyow gaari baan wadaa ama ka dhacdayo wax weeyaan hadhow baan kula soo hadlaya ama heblaayo bal hawl kalaan ku jiraayo wax weeyaan telefoonka lagu dhigaya tani waa cabasho badan ah baa lagu leeyahay so basically meeshaad u taagantay kuu taagani ma jiraan adigu cumrigaaga iyo waqtigaaga iyo dhaqaalahaaga iyo nafsadaada iyo haleelkaaga iyo waxaad ku bixisay inaad dadka kale dhegsiisid inaad taroomadooda xambaartid sometimes inay second hand trauma kugu dhacdo qashin qub baad noqotay adiga laakiin qofna kuuma taagna meesha aad u taagan tahay so waxaana samaysaa waa self abandonment weeyaan haydadow baad ku jirtaa su-aashu waxay tahay waxaasoo tusaale ah oo aad bixisay xamdee waan iska dhex arkaaye maxaanu u samaynaa ficilkan nafteenna aynu xaaladan haydadowgaa ku gelinayno nafteenna aynu kaga fogaanayno aynu ku dayacayno halkay ka timaadaa kow waxaan la yidhaaho self abandonmentku ima nafdayacu ama haydadowga xaaladan inaad ku jirtid oo disconnected aad ka tahay oo naftaadaad ka xadhig furatay oo cid kaluunaad u raran tahay oo xaqiiqadaada aanad noolayni waxay ka timaadaa waxa la yidhaaho childhood conditioning xaaladayn lagu xaaladeeya markaad yarayd maxaa laga wadaa tusaale ahaan waxaad ku kortay environment iyo meel ama biad jacaylka iyo kalgacalka iyo danaynta ay yihiin waxaan si dabiiciya u imanin oo la xaaladeeyo conditional laga dhigo tusaale ahaan ilmaha yareymka guriga jooga ee 2 jirka 3 jirka 5 jirka da'du doonaha marayo markuu yaryahay xaalada uu yaraanta ku jiro kalgacalka iyo danaynta iyo daryeelka iyo ilaalada la siinayaahi waa inay noqotaa mid aan ku xidhnayn shuruud oo la shuruudayn waalidku waa inay kalgacalka iyo raxmadda iyo wanaagga iyo samafalka intay karayaan ay ilmahan u siiyaan shuruud la'aan haddii ilmaha lagaga xidho waxa la yidhaaho kalgacalka iyo danaynta iyo ammaanta iyo wanaajinta shuruud lagaga xidho markaad aamusto ee halkaa fadhiisato ee afkaaga joog ka soo bixi waayo markaasun baad good boy ilmo fiican baa tahay inan yaro wanaagsan baa tahay markaad shaqayso eed waxaa qabato ee waxaa karto ee waxaa geyso islaanta reerkaad daaradda usoo masaxdo ee taa kale aad riyaheeda u ilaaliso ee waxa lagu diro aad xaggaa ka keento ayuunbaad ilmo fiican tahay marka albaabka lasoo garaaco dhag marka ugu horeysa sidaa farta loogu dhuftaba mar labaadka in hadaad furto ilmo fiican baa tahay allahuma salli calaa muxamed haddii dadka waaweyn markay hadlayaan aad aamustid mar walba waxaad haddii lagu khaldamayo aad hadli weydid ixtiraam muujisid ilmo fiican baa tahay macnihii inaad ilmahani fiicnaanshiyo uu dareemo waxay ku xidhan tahay shuruud bay ku xidhan tahay so kalgacalkaas iyo danayntaas iyo dhaqanka wanaagsan oo dhan oo ilmaha shuruud lagaga xidha ayaa waxay keentaa inuu koro ilmo dadka kale u raran qof dadka kale u raran oo validation raadinaya oo in la cabiro raadinaya oo in cid kala danaysa raadinaya markaas wuxuu dayacaa xuquuqihiisii iyo danihiisii iyo umuurihiisii isaga khaaska u haaye badqabkiisii maskaxeed iyo kii jidheedba isagoo ku daba jira in waxweeya dadka kale u danayn ama ammaan ama raalli ahaanshiyo u gaalo waxaa kaloo keena haydadowga dhaqanka haddii aad ku soo kortay dhaqan odhanaya allah heblaayo ama hebel naf huristiisu caadi maaha waxalla wuxuu hayo u bixinaya shilin iyo shalfad iskama reebayo waxaad arkaysid jaarkoo dhan miduu shaqaynayo miduu soo qabanayo miduu xambaarayo miduu keenayo miduusa it's not like inaanay ahayn inaa yani la caawiyo faamilkaaga la caawiyo jaarkaaga laga warhayo laisgacan qabto laakiin markay danahaagii ku dayaamayaan ee ubadkaagii ku dayaamayaan ee dhaqaalahaagii ku burburayo haddii shilin kasta oo jeebkaaga soo galaa bixisid oo gacantaadu ay saa u furan tahay 9 ammaan deetana ay dadkii wallahi ninka hebel Soomaalidu arag bismillaah raxmaan raxiim wax ka faxalsani ma jiraan lacagta sida durdur ku bixiya islaamikii xataa wax maaragtay bannaan maaha ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط كورا gacmahaagu saa yihiin
oo waxa la shilinka yaraa kusoo galo dhan aad bixinaysid oo ummadda aad siinaysid oo reerkaaga ka gaajoonayaan oo ubadkaaga ka gaajoonayaan danahaagay ka dayacan yihiin ammaan maaha dhaqankaasi markaa nafhurkaa saasay halaagaahi wuxuu keenaa amba dhaliyaa waxa la yidhaaho inuu insaanka geliyo xaala min alxaytatow 3,000 5,000 4,000 baad shaqaysaa bishii 1,500 baad shaqaysaa bishu markay 15 gaadhana waxba ma haysidba waxaad koob shaah ku cabtid ma haysid why because kan baad qaadhaan ku bixisay kan baad hebel siisay kan baad waxaad kartay xagan baad u dirtay ismaba weydiinaysay dhaqaale ahaan yacni maxaan meel dhigtaa maxaan sadaqad ka bixiyaa maxaan wax ku hagaajiyaa naftaadii baad halaagaysaa 24/7 adigoo validation raadinaya adigoo ammaan raadinaya oo laga yaaba sometimes hataa dadkaad wax siinaysaa inaanay waxa weeyaan aanay kuugu hayninba abaal ba inanay kuugu hayn iyadoo mar walba abaalka ilaahay laga sugo haddana qofka waxaad tahay hadda dowga ku jira ee baahida ku jira markaas hadhow toole waxaad galaysaa xaalad amaah inaad cid wax kasoo amaahato haysi ku soo celinaya bisha markay sidaa noqoto ayaan ku keenaya markaas haddana tiibaad abaal ka dareemaysaa markaasaad iscuncunaysaa markaas niyolkaad lacag ka keenta maxaa kugu weytay maxaad u soo qaadanaysay bishii haddana halkii ku celisay alif halkii unba bisha kale halkaa ka bilaabaysaa bisha kale halkaas ka bilaabaysaa bisha maba deyn baxaysidba weligaa soo adigaa naftaadii mardayacaysaa self abandonment baad ku jirtaa xaaladda haydadowga raalli ahaanshiyaha inaad cid kale raalli gelisid yaad ku jirtaa self sacrifice baad samaynaysaa nafhur baad samaynaysaa ammaan baad raadinaysaa waxyaabaha kale ee ay dadku u sameeyaan naftooda xaaladda haydadowga u geliya waxaa ka mid ah inay ka baqayaan diidmada inay cid diido kolkaa iyagu waxma diidi karayaan iyagu maya ma oran karaan iyagana xoog bay u dhibtaa in maya lagu yidhaa in cid kale iskhilaafaan waa qof uu markaa nabad ilaaliye un weeye nabad ilaaliye sometimes inaadan nabadda ilaalin ayay maslaxadda ku jirtaa inaad maya tarahooyay maslaxadda ku jirtaa in waxaad diidaa khaldana tiraad waxaas way khaldan yihiin bay maslaxadda ku jirtaa xataa haddii hadalku ili ka taagtaagma hadhow tolo qofkaas aliis inuu fahmo wax weeye okay inta wax laysla rogrogo wax laysla eego la wada hadlo soomaalida wax tiraahaan wada hadalna waa aan heshiino laakiin aad weligii nabad ilaaliya noqoto waxaad xambaaranaysaa dulmi fara badan oo naftaada laga geliyo dee qofkii ku caayaad tirahid iska aamusaya qofkii ku dulmiya kii ku xada kii ku xumeeya iska aamus adigu qofka wanaagsan noqo adigu be the bigger person ilaah goormaad ahaanaysaa marka dambe dacsad baad noqonaysaa dadka odhan ay kuu joogjoogsadaan allahuma salli calaa sayidina muxamed waxyaabaha ka dhasha xanuunada laga qaado waxa la yidhaaho haydadowga waxaa ka mid ah chronic anxiety inuu insaanku mar walba werwer iyo walbahaar ku jiro sababtoo ah waxaa la yidhaaho horta rida naasi gaayatun laa tudrak raalli inaad qof bani aadama raalli ahaansha ka raadisid waa wax aan la gaadhayn waa xaqiiqad jirta oo qadhaadh oy tahay inaad liqdid wanaag kasta haddaad samaysid qof ilaahay hagaajiye oo wanaajiye oo gobonimo iyo sharaf le mooyaane bani aadamku intiisa badan aktharuhum waxa weeyaan waa dad barakaysan ilaahii abuurtay adduunyadan u dhegeeyey ee habeen iyo maalin quudinaya ee badbaadinaya ee asturaya ee ilaalinaya ee maaragtay baahiyahooda u gudaya yay ku kibrayaan bani aadamku oyna raalli ka ahayn isagii bay shirki yeelayaan isagii bay ku caasiyayaan adoo bani aadamana fama baalika kolkaa anxietyga werwerka ah hebel raalli geli hebel u rarno u heblaayo ka daba orod chronic anxiety baa laga qaada culaysaan ilaahay ku saarin baad saaraysa waxaa kaloo laga qaada cuqdad sababtoo ah saa sheegayo sida dabiiciga caadiga wayna bani aadamka la raalli gelin karayn culaysadaad isi saartay tusaalahan soo qaadanee ahaa shaqadii marka 10 shaqadii ka rawaxdid dukaamada rabtay inaad kasii adeegatid oo lagaa xiray aad aragtid beritoolaha weli ku sugay aad aragtid saacadaha hurdadu ay kala go'aan daalkii iyo dayicii iyo darxamadii iyo waxa weeyaan allahumma salli calaa muxamed inta la'aanteed maanta oo dhan aad ku jirtay cuqdad baad qaadaysaa hadda nikaaxune booska ama gabadha booskahay balsida ay gelayso may waa inaan maalin dambe saa samayn qofkii bay cuqdad u qaadaysaa hadda waxaasoo cuqdada waxaa kaa badbaadin karaya inaad maya tirahay xaaladda ugu xun ee laga qaado haydadowga waxa weeyaan loss of identity iswaa inaad isweydid you don't know ciddaad tahay ma ogid adigu kumaa tahay hebel la'aantii heblaayo la'aanteed shirkadan la'aanteed
afartan oday ama afartan islaamood oo la joogto la'aantood meeshan iyo bi'adda la joogto la'aantood shakhsiyadaada dhabta ah lagu noocmaa bay ku taagan tahay bal halkaa ka istaagtid waad iswaayeysaa kas ammaanta hebel iyo u shaqaynta heblaayo u rarnaanta hebel ayuunbaad ku heshaa self identity dadkaasaad ku tiirsan tahay hadday dhaqaaqaan waad dumaysaa ka waad iswaayeysaa kas ma tid insaan mustaqil oo madax bannaan oo dadka kale ka madax bannaan dareemahaaga iyo doonitaanadaada iyo haleelkaaga iyo hayntaada waxa mar walba jaangooya dadkaa kuga hareeraysan ee aad u raran tahay marwalba waxaad dareemaysaa qof aan la arkayn marwalba waxaad dareemaysaa marnaashii gudeen si kastoo dadku ay kugu hareersan yihiin deep down qof walba markuu kaa danaysto yuu halkaa kaaga tegi qof walba markuu anxietygiisa iyo traumadiisa kugu shubo sida binka maaragtay lagu shubo qashinka halkaas wax qashin ku bad noqonaysa waa lagaa tegaya walaashay dadkoo dhan wallaahi hebel beri waxaa ladaa ku jiray anagu anigi saa u garab taagnaa anigi dhaqaalahayga ku bixi anigi halkaas sameeyey isagana salaamu calaykum tuiga qaadi laay qof habeen maalin caabinaya ayaa tahay cuqdad baa ku haysa waad daalan tahay waad isla adahay ya xiriir kastood ku jirtana waxaad dareemaysaa inaadan ka dhex muuqan kas go-aan kuma lihid hamaya haya maya maga odhan karaysid waxaad doonaysid ma ogid waa adigan abuse baad kusii degan tahay cid kalaad ka lalaadaa waxaad ka cararaysaa cidlayna dareentid waxaasoo dhani hadday jiraan maxaa xal u ah tallaabada koowaad ee kabashadu waxa weeyaan baraarug inaan self awareness lahaano baraarug inaynu lahaano yaa tallaabada koowaad ee kabashada iyo caafimaadka iyo waxa weeyaan xaaladad ku jirta inaad ka baxdo kabashada waxaa ka mid inaad buug ka akhridid waxaan oo ilaahay kugu baraarujiyo inaad podcastkan oo kala dhegaysatid oo ilaahay subxaana watacaala kugu siiyo fursada aad ku fahmaysa xaaladaad ku jirtid maxaa ka dhalanaya waxa la yidhaaho ogaalkaa nafeed waxaa ka dhalanaya inaad nafsadaadii bal la fadhiisatid oo isweydiisid bal maxaan dareemayaa bal momentska meelaha markaa waxaad isu fiirsanaysaa gudahaagiiba dib ugu noqonaysa waxaad u fiirsanaysaa xaalaadka aad ku jirto day to daygaaga maalin walba waxaa noloshaada ka dhexdhacaya bal istidooyinka waxbaa xaalad baa kula soo budboonaanaysaa markii waad soo boodeel waxaad la baratay haa inaad tiraahid anaa qabanaya anaa yeelaya anaa bixinaya anaa keenanaya anaa self awareness-ka waxay ku dhaxalsiinaysaa inaad dib yar fadhiisatid horta baa isu fiirsatid allah waad arkaysaa markaa meelaad tiri haa iyadoo gudahaaga oo dhan leeyahay maya haleelaadaan haynin adigoo meelaad ka keenta gara haa anaa samaynaya anaa keenaya anaa qaaday anaa bixinaya anaa ka horortaya self awareness wuxuu ku barayaa inaad dib usoo fadhiisatid oo heblaya ama hebelow bal horta fadhiiso basalka dhulka dhig bal isweydii intaanad haa odhanin maad karaysaa waxan miyaad haleel u haysaa waqti u haysaa miyaad dhaqaalo u haysaa miyaad qaban karaysaa miyaad tahay qofkeedii maxaa dadka u hor ordaysaa relax sarka dhulka dhiga oo isweydii self awarenessku saasuu ku siinaya allahuma salli calaa maxamed talaabada kale aad qaadi kartaa waxa weeyaan inaad practice karayso wax waliba practice bay ku imaadaa inaad maya tirahayd self abandonmentku ama heedadawgu waa xaalad la barto shaygana haddii la barto waa la sii dayn karaa barashadiisa you can unlearn it if you can learn it you can unlearn it wax lagu dhasho maaha wax geneticska ku jira maaha waxa awowgaagii shanaad ka dhaxshay maaha waa wax aad fasixi karaysood sii dayn karaysood ka xuub siiban karaysood ka bixi karaysid marka waa inaad practice garaysa bal maya waxyaabaha yar yarka inaad ku tirahayd meel baaba lagaa soo casumi tusaale hiblaayoy halkan baa xafladii baa ka jirta hiblaayo lasoo dhaweynayaa cashaa la samaynayaa dharaara intaanad markiiba waan iman doonaa inkastoo aanad diracba haysan oo soo iibsanayaa aanad odhan bal dib yar fariiso waxaa tira maxaa kuugu jira maad ka maarmi karaysaa tegitaanka xafladin miyaad haleel u haysaa miyaad dhaqaalo u haysaa miyaad nafsiyan dareemsaa inaad tegi karaysid maxaad ku luusaysaa maxaad ka faa'iidaysaa maxaad ku khasaaraysaa miyaad daalan tahay bal naftaada la yar sheekiso waan eegi doonaa intaad tirahay way kuu fududaanaysaa markaa hadhow inaad tiraahid maalmaha hore dhan way kugu adkaanaysaa waad yar gargariiraysaa wallaahi waan iman lahaaye laakiin ina yar baa iga hargabsan waan iman lahaaye laakiin dhakhtarkaan ballan ku leeyahay habeenkii dhakhtar ballan ma tago waan iman lahaaye hooyaagii baa been baad sheegaysaa sidaad nooda uga caragtid
laakiin the more aad naftaada ku noqotid oo the more ay ku fududaatay inaad tiri maya ma imanayo walaaliga raalli ahaada idinkuna maaragtay waqtigeena iska enjoy garaya dhow markaad seexato nafti baa kugu oranaysa allah imika dumarkii oo dhan kaa sheekaysanayaan tii heblaaya maya bay tiri talo maxay aragtay talo maxaa loo sheegay beryaha weyna ka goosatay xagee ka dhacday dhadhadha laakiin just say no habeenkaa ku hurda waa habeenka ku xigta way soo yar caadi habeenka saddexaad waad ka lulan waad ka seexan talaabada saddexaad wax weeyaan inaad samaysid wax la yidhaaho self check-in hoteelka markaad gelaysa degaysid self check-in lama sameeyo check out saas oo kale intaanad waxaa ku odhan intaanad wax isku rarin intaanad wax xambaarin intaanad cid hor urdin intaanad xaaladaanad karayn oonad ka bixi karayn aanad gelin bal horta naftaada gudaheedii gudahaagiiyo laabtaadii doonitaankaagii dhabahaashyahaagii haleelkaagii hanintaadii bal check-in samaysada hoteelka dhiso bal gudahaagii ku noqo bal isweydii maxaan iminka u baahanahay maxaan iminka u baahanahay miynan nastaan u baahanahay miynan wax cunaan u baahanahay miynan dukadaan u baahanahay miynan dikriyaan u baahanahay miynan maydhaan u baahanahay miynan halkaas ka fadhiyo wax weeyaan ilaahayga saciid u ahaado aan mahadnaqan u baahanahay what do I need now intaanad odhan maxay shirkad u baahan tahay muxuu hebel u baahay maxay heblaayo u baahay maxaa halkaa ka dhacay maxaa intaan adduunyada ku filaqsanaanay bal maxaan u baahanahay gudahaagii ku soo noq maxaan dareemaya maxaa igu culaysa maxaan haystaa maxaan haleelayaa maadaama nidhi waxyaabahani waxay naga soo raacaan yaraanta iyo qaabkan usoo korno waxaa jira wax la yidhaaho reparenting bal inaad dib adigu waalid isugu noqoto bal dib isu rabayn bal mar baynu si ballaaran uga hadli doonaa haddii ilaahay ka dhigo reparentingka waxa la yidhaha marka waxaad samaynaysaa gudahay kasoo bilaabata inner reparenting inaad dib isu soo tarbiyaysid adigu adoo weyn 40 jir ahaw 50 ahaw 60 ahaw 20 ahaw whatever waxa doonta ahaw intaad cuntada sii qabi lahayd ilaa guriga kusoo koray baa aniga saayga dhigadan lahayd adigu dib isu rabee haddii hooyadaa qaylo badnayd hadduu abaha qaylo badnaa haddii gidaarka feerka la dhici jiray haddii guriga o dhan chaos ahaayo meel maxabiyaa saribad la moodayay waxaad samaynaysaa naftaada markaad la hadlaysay baraxmad kula hadal bal adigu ictibaar isisii bal adigu si ictiraaf gudahaaga intaad meel kale dibadda wax ka raadin lahayd bal adigu si degan isula hadal wax kasta oo wanaagsan erey iyo ficil lahaayood soo weyday yaraantaadii markaad koraysay bal adigu sisiyo tiba suga invest garay reparenting arrinta ugu dambeysa waxa weeyaan xuduud in badan bay ka soo hadalnay xuduudaha xuduuddu ha u arkin gidaar dadka kaa dhex saaraya oo bulshada kaa dhex xeriyaya oo ragga istaqaanina maqaaxidooda fadhiisan jirteen waxa weeyaan calool xumo kuugu beeraya oo xuduudda ha u arkin inay gidaar tahay u arag inay tahay albaab looga soo galo ilaalada naftaada iyo ilaalada waxa la yidhaaho tamartaada ha u arkin wax ku restrict garaynaya oo seeta kugu xidhaya ummadda kaa dhex saaray u arag wax kuu adeegaya oo xidhiidhadaada selective ka dhigi karaya kuu kala miidhi karaya dadka dunta lee wanaagsanay waxaweyaan naftooda ay ku degayso iyaga kale ee waxaweyaan aan kuu adeegayna aanay hayndaafkaaga ku jiraan way fududaanaysaa marka inaad xuduud samaysatid way fududaanaysaa inaad mayad tiraahid way fududaanaysaa wixii dantaada ah inaad ku fooganaatid way fududaanaysaa inay dhaqaal ahaan inaad badbaadid nafsi ahaan inaad badbaadid fudayd gudeed inaad dareentid oo waxweyaan aanad habeenii maalin isu culaysin mar kasta ilan waxaan in badan baad soo sameynaysay oo markiiba waxweyaan xalidhalin noqon mayso inta caawa dhegaysatid dhaag barinta hore saa noqon maysaa waxaan waxay u baahan tahay practice bal hakashada baro intaanad haa odhan la soo boodin dib u yar fadhiiso waxaa tiraa okay haddii hablaay wala halkaa ma isku raacnaayo waxaa ma samayn karaysa gaariga ma soo kaxay waxaa tiraa bal waan kugu soo warcelinayaa way kuu fududaanaysaa markaad nafsadaadii ka fikirtid haleelkaagii aad eegtid maxaa kaaga baxay aad eegtid maad karaysaa aad eegtid waqti maad u haysaa aad eegtid inaad qofkii jawaab celiso tiraa mee walaal waan inta raalli noqo ma karaya iminka pause hakashada baro ha soo boodin dadka ha hor ordin naftaada ha dhibin ugu dambeyn waxaa idinkaga tegayaa qof walowba markaad xilqada dhegaysatid warqadii qalin intaad soo qaadisay ama telefoonkaaga noydkiisa waxaad isweydiisaa dhinacyada noloshayda aan macnihii ka wadaa waxa la yidhaaho heedadow dhinaceen heedadow ka ah ma dhinaca dhaqaalaha ma dhinaca diinta ma dhinaca xayndaabka iyo dadka xidhiidhada la leeyahayba
ma dhinaca shaqada, ma dhinaca guurkayga, ma xidhiidhka aniga iyo ilmaha naga dhexeeya, halkaan ka heeda daawaya, halkuu heedatowgu ka jiraa isweydii, halkeen naftayda ka dayacaya iyo waxaanan doonaynan ka samaynaya anigoo raali gelinaya dadyowga kale. Ugu dambeyn waxaan ku celinayaa waxani waa wax la soo bartay oon soo baranay environmentkan ku kornay, qaabkaan u soo kornay, allahuma salli ala dadkii na soo koriyey, means waa wax laga xoobsiiban karayo, wax laga xoobsiiban karayo. Marka muhiimadda waxa weeyaan inaynu lahaano naf ogaal, inaynu fahamno heedatowga muxuu yahay, self abandonmentku muxuu yahay, naf dayaciddu maxay tahay. Markaynu fahanno tallaabooyinkan aynu qaadno ilaahayna aynu la kaashano subxaanahu wa tacaala way fududaanaysaa inaynu ka xoobsiibanno. Salaam.